sultaankay ku xidhnaan maayo 24 saacadood gudahood haddaad ku soo diin weydid oo gacan ku dhiiglihii iyo shirqoolkii dadkii sameeyey aad keeni weydid wallaahi dhalinyarteeda waxaa leeyahay ka kaca fadhiga ha laga kaco dagaalna diyaaran u ahaano ninka la raadinaya wax dilay malaha guriga Cabdiraxmaan Ciruuba jooga baan u malaynayaa anigu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من كستود الملك استوى الدولة نقل سعوتان وهنا 4 بشهر جولاي نيسي قلي سودح 20 سنة 2025 qodobada barnaamijkan ugu maqli doontaana waxaa kamid ah shacabka reer Soomaaliland qaybo kamid ah ayaa aad uga careysan guud ahaan dilkii ka dhacay magaalada Hargeysa iyadoo mudaharaadyo waaweyn maanta ay ka dhacayeen meelo kamid ah Soomaaliland waxaa shacab careysan ay xireen wadada isku xidha gobolada bariga iyo caasimadda Soomaaliland degmada Sheekh ayaa markaasi mudaharaadkaasi uu ka dhacay waxaa sidoo kale caawa mudaharaad xoogan uu ka dhacay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland xaafado kamid ah haddii waxaan eegi doonaa sidoo kale mas'uuliyiin waaweyn oo ka mid yahay Cornel Carre iyo rag kale ayaa iyaguna markaa afka furtay oo sheegay in hadda ay dowladda Soomaaliland wajahayso fashil dhinaca ammaanka iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay ama laamaha ammaanku ay sheegeen in dilkani uu ahaa dil qorsheysan ayaa haddana ilaa iyo hadda ilaa markaasi ciddii dilkaasi geysatay waana markii ugu horeysay ee dhacdo noocan oo kale markaasi ay dhacayso laamaha ammaankuna ay noqdeen markaasi kuwa arrinkan ka aamusa xitaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland kama uusan hadlin markaasi guud ahaan xaaladan waxaana tan lagu tilmaamay noqon karaysa markaasi mid xaaladda si xumeyn karaysa oo xukuumadda markaasi ku xumeyn karaysa waxaa sidoo kale lagu sii daray dhacdo kale oo lagu xidhay markaasi nin suldaan ah markaasi madax dhaqameed ah oo dhacdada markaasi ka hadlay isla markaana tilmaamay in dhalinyaradani ay muddo 48 saacadood ka badan markaasi ay ku jiraan talaagada markaasi qaboojiye lagu hayo meydkooda iyadoo ilaa iyo hadda markaasi aan la aasin haddaba waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray Soomaaliland la xiriira markaa guud ahaan dhacdadan iyo dilkan markaasi ka dhacay bartamaha caasimadda iyo qaab markaa uu saameyn karayo xukuumadda Soomaaliland iyo waliba madaxweyne Cabdiraxmaan Ciise tallaabooyinka uu qaadi doono ay ku aadan inuu saameyn karayo isku shaandhayn ama wax ka bedel laamaha ammaanka iyo guud ahaan xukuumadda Soomaaliland iyo dhinaca kale Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa guuldarro kala qaatay maanta kadib markii looga adkaaday dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo saacadihii ugu dambeeyay waxaa hadlay Cabdirashiid Janan oo ahaa ninka markaa isagu maanta tagay magaaladaasi Balad Xaawo dagaalkuna uu ka bilowday sida wararku ay tilmaamayaan waxa uu tilmaamay markaasi guud ahaan Cabdirashiid Janan in eedeysane waa soo hadalka u dhigay markaasi Axmed Madoobe inuu markaasi abaabul xoogan oo ciidan uu ka wado magaaladaasi Balad Xaawo waxa markaa laga cabsi qabaa in dagaal uu ka dhici karayo waxaan eegi doonaa haddaba halka uu caawa ku sugan yahay Cabdirashiid Janan iyo mucaaradka Soomaaliya oo intooda badan markaasi afka furtay ee eegi doonaa saacadihii ugu dambeeyay Cabdishakuur ayaa isaguna hadlay markaasi oo kamid Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo xildhibaanka markaasi mucaaradkana hogaamiyaha markaasi kamid ah hogaamiyaashooda iyo sidoo kale laamo kale oo kamid markaasi mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale hadlay waxaana ay tilmaameen in Xasan Sheekh Maxamuud uu muuqdo inuu uga baxay markaasi ballankii maadaama ay wada galeen heshiisyo qarsoodi ah ama maalmihii ugu dambeeyay labada dhinac wada hadal uu u soconayay iyo waxa soo kale eegi doonaa dowladda Mareykanka waxa yiraahdo ku soo rogtay laamo iyo soo kale shirkado iyo waliba shakhsiyaad xiriir la markaasi kooxaha Xuutiyiinta ee wadanka Yemen Mareykanku waxa uu doonayaa inuu qaado tallaabooyin waaweyn oo markaasi ku hor istaagayo kooxaha Xuutiyiinta oo awood badan markaasi xilligan soo bandhigaya isla markaana la wareegay markaasi marinadii kala duwanaa ee dhanka badda waxa Mareykanku isku dayayaa in tallaabo kasta oo ku hor istaagi karayo markaasi kooxahan inuu qaado iyo dhinaca kale madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa markaas saacadihii ugu dambeeyay afka furtay isaguna waxaana uu tilmaamay in tallaabooyinka iyo waxyaabaha ay sameynayso markaa Israel inay la mid yihiin qof waalan oo kale taasina aan loo dul qaadan kareynin ayuu tilmaamay Erdogan hadaba waxa la isweydiinayaa maxaa markaasi uu sameyn doonaa Erdogan oo bariyahan hadal ay kaga soo hadhay ayaa la leeyahay qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhay Soomaaliland waxay sheegayaan in ay mudaharaadyo xoogan markaasi ka soconayeen tan iyo maanta qaybo kamid ah deegaanada kala duwan ee Soomaaliland degmada Sheekh oo markaasi ah marin halbowla oo isku xidha magaalooyinka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo soo kale gobolada bariga Soomaaliland ayaa dad careysan ay xidheen wadadaasi iyagoo ka careysan markaasi dhacdadii ka dhacday magaalada Hargeysa ee lagu dilay labo markaasi dhalinyaro ah sidoo kalena maanta lagu xidhay markaasi Suldaan Qabiile oo isaguna kamid ah markaa salaadiinta labada wiil ee la dilay markaasi beeshooda ka soo jeeda
labadan wiil oo markaa isku beel ah ayaa la tilmaamay in lagu dilay bartamaha caasimada, sidoo kalena dilku waa mid qorsheysan oo laga soo shaqeeyay sida laamaha ammaanku ay sheegeen, iyadoo ilaa iyo hadda markaasi la leeyahay ninkii gacan ku dhiglaha ee dilkaasi geystay. laamaha ammaanku ay sheegeen in baaritaano kala duwan ay u wadaan, balse ilaa iyo hadda wax gacanta lagu soo dhigay markaasi ma jiro. waxaa tan ay muujinaysaa ay leeyihiin dadka shacabka ee mudaharaadaya habaca iyo sidoo kale guud ahaan kala daadsanaanta ka jirta ammaanka Somaliland. tani ayaa soo dhexmari karay markaasi lagu soo dhexmari karaya ama lagu soo dhexdhuman karaya oo dhibaato ka weyn tan la geysan karaya, walow tan lafteeda markaasi aynan yareyn oo ay tahay dhibaato aada u weyn oo laba dhalinyaro ah oo yaryar markaasi dilkaasi foosha xun loo geystay, weliba hal reer markaasi kasoo wada jeeda. sikastoo xaalku hadaba waxaa dadka shacabka ah ee degmada Sheekh ay tilmaameen inay wadi doonaan dhammaan mudaharaadyada ay wadaan markaasi qaar ka mid ah salaadiinta iyo madax dhaqameedka ayaana hadlay, waxaana ay sheegeen in mudaharaadyadu ay sii socon doonaan maalmaha soo socda tan iyo inta ay xukuumaddu kasoo qabanayso ama ay meel kaga sheegaysa markaa dadkii ninka dilay markaasi iyo macluumaadka ku aadan gacan ku dhiglaha. dhinaca kale magaalada caasimadda Hargeysa waxaa sidoo kale ka dhacay caawa mudaharaad kale oo isaguna xoogan oo ay dad isugu soo baxeen, waxaana dadku ay markaa iyaguna sidaas oo kale ka cabanayeen laamaha ammaanka ee Somaliland oo ay ku tilmaameen in fashil dhinaca ammaanka ay wajahayso Somaliland. madaxweyne Cabdiraxmaan Cirran looga baahan yahay inuu tallaabo degdeg ah qaado oo ku aadan arrinkaasi iyo dilkaasi markaasi ka dhacay magaalada Hargeysa oo ilaa iyo hadda markaasi la leeyahay, waana dhacdadii ugu horeysay ee sidan oo kale ah ee Hargeysa ka dhacaysa, iyadoo ay sidoo kalena la gaar noqotayba in la leeyahay gacan ku dhiglihii. inta badan waxaa dilalku way dhici jireen oo marwalba markaasi waa la isdiri jiray, balse waxa ku cusub ayaa ah in la waayay gacan ku dhiglihii. Somaliland waxay aad markaasi ay caan ugu ahayd oo lagu ammaani jiray in ay heli jirtay markaasi gacan ku dhiglaha isla markaana lasoo qaban jiray oo laamaha ammaanku ay soo bandhigi jireen. haddii xitaa aan lasoo qabanina waxaa laamaha ammaanku ay la wadaagi jireen xogta, waxaa la isku dayi jiray in la dedejiyo oo dadka shacabka markaasi intii xogo khaldan loo sheegi lahaa oo dad kale markaasi looga faa'iideysan lahaa, bulshaduna ay kici lahayd, waxaa lasoo markaasi loo sheegi jiray waxa jira iyo halkay wax marayaan iyo xaaladahaasi kala duwan. balse xukuumaddani waxaa la leeyahay waxay ku sii darsatay in iyada isla soo quman tahay oo ay dadkii sii xidhxidhaba sidii markaa iyadoo inay geysatay dilkaas oo kale ayay markaa dadkii usoo xidhaysaa, maadaama dadka ka hadlaya ay markaa xidhay oo uu ka mid ahaa Suldaan Qabille. waxaa sidoo kale ka hadlay markaasi dhacdadan Cornel Carre oo kamid ah markaasi saraakiisha ciidamada militariga Somaliland, waxaana uu tilmaamay in xukuumadda Somaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Cirran hadda uu soo dhisay inay yihiin kuwo aanan ku habbooneyn shaqada loo igmaday. waa sidoo hadalka u dhigay, waxaana uu tilmaamay in madaxweyne Cabdiraxmaan Cirran haddii uu sidan kusii jiro in shacabka iyo isagu ay iswaayi doonaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in tallaabo degdeg ah u qaado madaxweyne Cabdiraxmaan Cirran oo uu kaga hortegayo in ay markaa shacabku kacdo oon ka dhana xukuumaddiisa ay sameeyaan. waxaana uu sheegay in laamaha ammaanka ee hadda jooga ay badhaameen kuwii hore oo ay aad uga fiicnaayeen, weliba taliyihii hore ee ciidamada booliska Somaliland Cornel Dabagale ayuu markaasi ammaan markaa uu kala duldhacay Cornel Carre, waxaana uu tilmaamay in xitaa uu ahaa nin dadka la hadlaya oo shaqadiisuna ay tahay markaasi mid degdeg ah oo mar walba ka fikiraya guud ahaan waxa ka imanaya falcelinta ka imanaysa markaasi guud ahaan markii wax dhacaan. waxaana uu ahaa ayuu sheegay nin shaqadiisa garanaya, balse hadda Cabdi Dheere iyo Sandheero markaasi waa la leeyahay ayuu tilmaamay, waana rag markaa u muuqday in iyagu isla quman yihiin, shaqada loo egmadayna ma aha markaasi in ay xaragoodaan, waa in shaqada markaasi la dedejiyo oo shacabka isla markaaba lala hadlo wixii markaasi ay tabanayeen ama guud ahaan gacan ku dhiglahaasina kama weyna gacanta ama laamaha ammaanka ee Somaliland in gacanta lagu soo dhigo oo isla markaaba la soo qabto. dhinaca kale waxaa wararkan soo gaadhay kamid ah iyadoo maanta dagaal xoogan oo ka dhacay degmada Beled Xaawo ayaa waxaa halkaasi markaa ku adkaaday oo magaaladii la wareegay ciidamadii Jubbaland oo iyagu goobta ku sugnaa. madaxweyne Axmedoobe ayaa baryahanba ogaa markaasi inuu dowladda federaalka ee Soomaaliya kusoo socoto dhanka magaalada Beled Xaawo, waxaana uu diyaarsaday ciidamo markaasi la dagaalamo cid walba oo halkaasi soo geli karaysa. Cabdirashiid Janan ayaa maanta lagu keenay magaaladaasi diyaaradaha helicopter kuwaasi oo la sheegay in isaga iyo weliba wafdigu hogaaminayay ay keeneen magaaladaasi Beled Xaawo. kadibna waxaa bilowday dagaalka, waxaana ciidamadaasi Jubbaland ay la wareegeen degmadaasi Beled Xaawo.
iyadoo la tilmaamay in dowladda federaalk ee Soomaaliya mar kale ay qaadanayso guuldarro dhinaca markaasi dagaalka iyadoo hore looga Axmed Madoobe inuu markaa uu degmada ama deegaanka markaasi Ras Kamboni ciidamadii ay geysay dowladda Soomaaliya inuu si xoog ah uga soo saaray sidoo kale degmooyin kale oo iyaguna kamid ah gobolka Gedo ayaa hadda lagu dagaalamaya waxa kamid ah degmada Doolow waxa sidoo kale kamid ah degmada Luuq iyo degmooyin kale ayaa la isku hayaa Cabdirashiid Janan ayaa laga soo dhigay taliyaha ciidamada nabad sugidda ee gobolka Gedo ama taliyaha xasilinta iyo nabad sugidda gobolka Gedo waxaana uu doonayay inuu saldhig ka sameysto magaalada Balad Xaawo halkaasina markaa wada shaqeyn uu kala furto dowladda Kenya oo daris la ah markaasi degmada Balad Xaawo balse Axmed Madoobe ayaa halkaasi u diiday inuu gudaha u soo galo maanta magaalada Balad Xaawo isagoo ku sugan duleedka degmada xero markaasi ciidamada militariga Soomaaliya ay leeyihiin oo lagu magacaabo UK ayuu waxa uu sheegay in uu tanaasul sameeyay ciidamadiisana uu xakameeyay isla markaana uu diiday inuu ku dagaalamo magaaladaasi Balad Xaawo balse hadda waxay wararku tilmaamayaan inaan la huri doonin in dagaal kale uu ka dhici karo magaaladaasi Balad Xaawo haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto maadaama ciidamada markaasi Axmed Madoobe ay hadda markaasi magaalada gudaheeda ku sugan yihiin dowladda federaalk ee Soomaaliya magaalada banaankeeda markaasi ay joogaan waxay noqonaysaa in abaabul la sameeyo ama ciidamadan labadan ciidan markaasi isma fiirsanayaan midunba tallaabo qaadi doona dhinaca kale mucaaradka ayaa intooda badan afka furtay iyagoo ka hadlay markaasi xaaladda ka taagan guud ahaan dalka iyagoo tilmaamay in tallaabada laga qaaday Balad Xaawo iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya tallaabooyinka ay qaadaysa inay yihiin kuwa khaldan waxaana uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka isla markaana xubin muhiim ah oo mucaaradka Soomaaliya ka tirsan waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaliya aysan koobiyeyneynin markaasi ficiladii xukuumaddii ka horeysay ee farmaajo sidoo kale ay adeegsanayso shakhsiyaad isku mid ah oo markaasi uu wala jeedo Cabdirashiid Janan oo dowladii hore ee farmaajo ay u adeegsatay markaasi gobolka Gedo walow dagaal xun oo ka dhacay markaasi gobolkaasi ugu dambeyn haddana Axmed Madoobe tiisi ay noqotay ninkan ayaa hore u ahaa wasiirka amniga ama gacanta midig ee Axmed Madoobe balse hadda waxa uu noqday markaasi nin mar walba loo adeegsanayo Axmed Madoobe dagaalkiisa dhinaca kale maamulka Puntland ayaa qoraal degdeg ah ka soo saaray si kulan uga hadlay markaasi dagaalka maanta ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Cabdinuur oo qoraalka soo saaray ayaa dagaalkan ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaarihiisa isagoo nasiib darro ku tilmaamay dhiigga haatan ku daadanaya degmada Balad Xaawo ra'iisul wasaare Xamse iyo soo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka ay saaka ku qaadeen Balad Xaawo waa nasiib darro waxaan xasuusinaynaa in wali uu socdo dagaalkii shabaabka halisna ku yihiin jiritaanka dowladnimada ayuu yiri wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka Puntland sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dagaalkan uu halis ku yahay dowladnimada isla markaana laga haboon yahay in ciidamada Soomaaliyeed ay iyaga dhexdooda markaasi wada dagaalamaan akhirta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo